السلام عليكم. السلام عليكم صحابي وأني وصلاتي مسكينتي الله وصلاتي ويان وأني الكراجي وينو كلا راجلني إن شاء الله وحرشيني إن اللي ودع في مال قبوه أنا رشيني إن شاء الله بسم الله الكريم سيدونا وكله أنا أقول والحمد لله أنتي هل كان كنا ولادي أنتي هالرجع كنا ولاد بوا وذا نبض قبل كو وحن ما أنت هل كان كسي وضياه محل هذا حنون كي أن كهل تشري part 1 part 2 part 3 part 4 لهاي أن ذات يعني كجهد لايي بان ما أنت نسي وضياه maxaan dhahday dee bal markaa waxaa sii waday qeybtiisii 7 ayaan sii wadayaa qeybtiisii 7 baan maanta wadayaa marka qeybta anxiety tense muscular baa maanta ka hadlaynaa tense muscular waxa weeye maxaan dhahday murqaho geejismaya murqaho is urur adkaanaya baan maanta ka hadlaynaa oo xanuunkan baa koos garaynaya okay book baan ka akhriyaa book baan kusoo qortay waxaan oo dhan sidaan idiin sheegay anigu waxaan ahay ardayad wax dhigata baan ahay miyi dhakhtar laakiin wixii aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed baad kusoo kordhin kartaa oo maxaan dhahday uga faa'iideyn kartaa waan idin soo duwiyaa okay murqaho ku adkaada iyo seedaha murqahana adkaanaya seedahan baa isgiijinaya waxayna Steve bay yiraahdaan markay seedu isgiijiyeen qofku markuu cabaar fadhiyo uu kaco ayaa jirkooda soo wada giijinayaan qasami walba kaaraysa waa murqahan baa sadkeynaya wax xanuunkan weeyaan iyo murqaho is xirxiraya oo maxaan dhahday adigu xanuunkan wuxuu abaarayaa meel kasta uu galaya meel kasta jirka kamida uu gelayaa markii hore waxaan ka soo hadalay inuu hurdalaan ka bilaabmo waxaan ka soo hadalay inuu maxay dhahday caruurta dhalinyarada teenagerka kuwa yaryar dadka waaweyn waxaba uu ataagayo uu maxanadaa saameynayo waxaanu ka soo hadalay siyaabaha dadka uu maxanada ugu fido calooshu kaga dhacaya madaxu kaga dhacaya adigu jirkiiba kolba qayb u gelaya marka maanta waxa weey waa qaybtii murqaha iyo seedaha ayuu ka hadlayaa marka murqahan ayaa isgiijinaya oo adkaanaya oo meeshii waxay noqonaysaa meel adag oo ka kononsan oo maxaan dhahday waxay noqonaysaa meel dee waad garanaysaa murqu adkaado ama seedu adkaato oo aan leecaynin weeyaan waxa ugu wacanna waa xanuunkan baa ayaa maxaan dhahdaa meeshii soo saameynaya marka maxaan dhahdaa maxaa lagu sabaalin karaa lagu daaweyn karaa dawo kale ma jirto waxa sameynaysa qofku markuu waxa isku arko oo waxaan ka soo hadlay oo dhan ajaladay kale anxiety ka hadlayay hadda dib u eegtaan waxaan ka soo hadlayay waxyaabaha hadda ku soo hadlo horta maan soo sheegin qofku wuxuu isku daaweynayo iyo halku wax qabanayo weli ma soo sheegin laakiin welina ma soo waa soo dhaway waqtigan sheegay insha Allah bismillaah kareem dawooyinkiisa iyo waxa laakiin qaybtan seedahan is adkeynaya iyo qaybtan maxaan dhahday iyo murqahan tense muscularkan iyo waxaan oo dhan baan maanta ka hadlayaa iyo sidaad si caawimada yar isku caawin lahayd hadii maartay aad isku aragtid ama qof ku dhacay aad aragtid qofkaas inaad ku caawisid maxaan dhahdaa advice ku siisid waxa sameynaysaa marka jirkaagu soo wada galo haddaad dhaxmoonaynin oonad firiisaynin waxa sameynaysaa waxaad gelaysaa baadka biyo diiran baa isku shubaysaa hadduu shower leedahay haddii aad shower lahayn oo baadka lagu fushiisado aad haysatidna sidaas oo kale biyaad ku shubanaysaa kulul maxaan dhahday biyahaas isku dhex jiraysaa si seedahaagii iyo murqahaagii
iyo wixii oo dhan ay u kala baxaan marka maxaa habeenkii si fiican ugu seexatid sida haddaad matalan sii wadid laga yaabaa in waxani maxaa dhahdaa murqa adaygan iyo seedan maxaa giijinaysa iyo waxa soo dha inaad maxaa kaarkiisu ka kala yaraado baa laga yaabaa maxaa dhahdaa isugu xeerman iyo inta ka harsan muddada ku haynayo xanuunkan qaybtan murqaha waxa weeye aday kugu xidhan tahay saas iga daaweyn lahayd saan soo sheegay because waxa uu daawaa biyaha kulul inaad isku shubtid inaad biyo kulul dhex gashid ayaa u daawa wax kale u daawaa qaybta murqahaasi ma jirto dawadiisu waa biyaha diiran isku shubisid qof haddaad aragtid uu hayana u sheeg haddaad adig laftigaaga isku aragtid isku samee haddaad ubadkaaga ku aragtid oo aad aragtid carruurtii oo maxaa juucsano oo ku dhan hooyo lug bay xanuunaysa hooyo garab bay xanuunay hooyo sanay sameynay waxaad kula maxaa haddaan ilmahaasi hargab lahayn ama meeshu aanu aad u qaboobeen biyo diiran dhexgeli ilmaha oo maxaa dhahdaa ugu maydh oo jirkiisa ugu masaajee oo saliid yaroo diiranna u mari marka ilmahaas waxa laga yaabaa murqa xanuunka badan inay ka yaraato adigana saas leegina isku samaysid okay taa haddaan ka soo gudbo waxaan aan maxaa dhahdaa leeyahay waalidiinta anigu waalidiinta mar walba soo ataagaa because waxa weeye madaxa reerka weeyaan waalidiinta waadinkan arkay situationka adduunka ku socda carruurihii la guranayo carruurihii la ataagayo carruurihii la inaga hadday waaweyn yihiin iyo hadday yaryar yihiinba dagaal ba laynagula jiraa iminka I don't know wadamada kale ma garan karo laakiin halkan aan joogo September ba iskuulada la furayaa carruurihii waxaa la barayaa wixii dee inaga xaaran tahaaba la barayaa dee reer walba soo ilmahaaga u badbaadsan lahayd aday ku jirtaa hadda tomaan ogeyn iyo layma sheegin iyo waxaas ma jirto waa inaad ilmahaaga badbaadisaa ilaah baa wax badbaadiya dadka carruuraha laga qaadanayana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay carruurta u soo celiyo kuwii carruurtii fitnada ka galeen ilaahay carruurtii ha u soo celiyo oo maxaan dhahdaa carruurihii maxaa bilaaya dhibaatay naga haysata oo ubadkii waxaan ku uri maxaan dhahdaa shaydaan inaga inoo eg iyo shaydaan cadaan ka weeg iyo balaayo dhan ba meel walba u taagan oo carruurihii usaa maxaan dhahdaa dee waxaan ku faraxun ku haysa faraxun bay ku haysaa carruurihii maxaan dhahdaa maxaan dhahdaa cid lagu jiro ilaah baa oge anigu inantaydii way iga tagtay way iga dhaqaajisay inantaydii kibir baana guriga ka saaray waxaan rajeynayaa waxaan doonayaa ummadda islaamka inay igu soo duceysaan ilaahay inuu soo hadiyo isoo duceeyay inantaydii kibir iyo waalibaa kor saartay Soomaali baana guriga ka saartay cid kale kama saarin Soomaali baa guriga ka saartay oo maxaan dhahaa kubad bay hortuureen kubadii bay daba carartay iyaduna waa laga aqal badiyay naga yarooyada kalaaba ka aqal badiyay oo maxaan dhahdaa oo khiyaameeyay dabatana iyadoo ciidanka taagan naga yaraa kalena guriyahoodii bay ku jiraan oo hooyooyinkood la joogaan marka walaalayaal carruurihiina saaxiibada hadii xitaa saaxiibo Soomaali ay leeyihiin ka ilaashada Soomaalidii waxay isku noqotay sunba isku noqotay hadii carruurtiinu saaxiibo Soomaali ay leeyihiin ha aaminina no way Soomaalidii way isrugtay Soomaalidii way isbaabiisay waa maray isbasaasaan waa maray carruuraha isu soo diraan gaala u soo dirtaan waa maray iyaga gudahoodii maxaa carruurhoodii ku xuma ama ku khaymiinta qalbigooda xuma carruuri kale guriga joogay badka qabay maxaa fasahaadi fusuq dhexgaliya reeruhoodii ka saaraan waxaasoo maran bay nagu dhex jira aniga markaa inantaydii Soomaali baa guriga ka saartay habla yaryar oo Soomaaliya oo iyada la daa baa ka aqli badiyay banaanka loo saaray
marka waxa weeye caruurihiina Soomaaliya caruurihiina yaryar ama haweenada haddaad saaxiibo ku aragtaan saaxiibada ka ilaaliya ka reeba caruurihiina saaxiibo Soomaaliya ha u ogolaan saaxiib ajaanib ha u ogolaan caruurina guriina idin fadhiyaan idinka idinku ay kaadaan anigu leeyahay anigana inta igu soo duceeyo please and please qof lagu jira Ilaah baa oge Ilaah baa wax kasta soo hanuuniyo Ilaah baa wax kasta soo celiye waxaan ka baryaa caruurta inanteedii igu soo duceeya inanteedii shaydaan baa qaatay shaydaan baa Soomaali soo ekeysiiyay oo guriga ka saaray marka waad baryayaa please isu duceeya inanteedii inay yaro wanaagsan bay ahayd inay yaro ixtiraam leh bay ahayd inay yaro edab leh bay ahayd inay yaro fariida bay ahayd inay yaro waxeeda ka adag bay ahayd balaa ka dinka ku soo gashay saaxiibiyo qurniyo qajaabiir anigu ajaanib baan iska ilaalinayay Soomaali baan soo dhaweysanayay Soomaali baan guriga ka saartay Soomaali xijaaban oo laa ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah leh baa gurigii ka saartay inanteedii oo haadaan uga talaafsatay marka iska ilaaliya Soomaaliya caruuraha yaryar ee Soomaalida la saaxiibka ama inan ha ahaado ama inan ha ahaato ilmahaasi waa inuu ka adkaada shaqada hadduu shaqaysanayana shaqadiisa iyo guriga bas hadduu iskuul tagayo gurigiisa iyo iskuulka bas idinku waa inaan la sheekaysataan ilmihii because waxaynu ku jirnaa iminka waqti aad u adag bin ku jirnaa oo wax kastaba dhinac kastaba laga soo ataagay dhinac dinta laga soo ataagay dhinac caruurta laga soo ataagay dhinac maskaxiyaan baa laga soo ataagay dhinac kasta oo loo badbaadiyaba ma jirto iminka waa meel kasta wala iska soo ataagay iminka reerkii Hargeysa deganaa ee inanta Iiraan dibad weligeed aan arkin weligeed dibad ma arag gurigooda ku dhex jirtay jaamacad bay dhiganaysay haye hal gurigooda dhexdiisa iyadoo joogta ayaa gaal Kristan laga dhigay inantii yareed oreekuna leeyahay waa inanteedii dadka noocaas ayaa iminka nool oo maxaan kula nool oo maxaan ku qoslaya laakiin aanad guntoodii sirtooda aad gaadhay ilmahaagii markuu sirtiisa aad gaadhi kari weydid oonad ogaan karayna waa mushkilad weeyaan wax walba uu kaa qarsanayo adiga inaad hooyo iyo aabba daacada tahay oo asleed ilmahaagii wax loo ordayana waa ilmihii iskuulka gee malcaamadii gee dhar soo iibi kan qabo wax asleed mustaqbalkiisii baa soo dhisaysa laakiin ilmihii isagii kuma oga wuxuu ku arkaaba inaad bahal tahay wuxuu ku arkaaba inaad cadow ku tahay isagii war ka joog war hooy joog na hooy joog na maya wax maqal may adaaba hadlayaba adaaba buuqayaba waxa weeye waa habar ba iska hawlaha maxay heelada inoo tumaba ay waalidiintii Soomaalida ku jiraan imanka caruurtii baa saale habar ba iska hawlaha heelada inoo tuma saasaynu wadanahay marka waxa weeye caruurihiina Soomaalida gudihiisa saaxiibka kuwa kala ka ilaashada reer kastoo ilmihiina Soomaali dabada ku wadato ilaa kana hebel baa saaxiibkay iyo heblaaya saaxiibadayda ha aaminina balaayo weeyaan waa balaayo la soo diray weeyaan ka ilaashada caruurihiina halayaha qof iska ilaaliyo saasa ku fiicantay noloshu in la kala fajignaado in la kala maxanada la kala gabado in aaminaadi baa dhimatay aaminaad ma jirto waxaad aamini kartaa ma jirto waxaad aamini kartaa ma jirto sida markaa soo jeesto wax isbedelaya sikin wax isku bedelaya marka khayr baan isku ognahay walaalayaalo ducada deewaan insha Allah maxaan dhahday ilaahay soo bariya inantayda inuu ilaahay soo celiyo inantayda wanaageedii ilaahay ku soo celiyo ilaahay inuu maxaan dhahday soo hanuuniyo ubadka islaamka inta dhibanna ilaahay soo hanuuniyo Soomaalidu ka dhiban tahay intii gaaladu qaatana ilaahay inuu soo celiyo waynu wada dhibanahay khayr baan isku ognahay maca salaama walaalayaal insha Allah bismillaahi kariim qaybta kalena adigu insha Allah marka maxaan dhahdaa week dambe ama week labaad baan soo duubaya hadii ilaahay ka dhigo ay soo dee inta kalena waa iska yara mashquul baan iska hawlaha adduun baan daba ordayay waxaan ku wada khayr baan isku ognahay